بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا قضبضا وراركا جانل كينا ديني لتيفي وقدور كرون وحانا كمد نقونيا أبوكر عمر عدان أو دادكر المقدشو كوشيغينا يمدينيين إلا عقابو وزير عمر أو صواب لياب له كوشيغي حيراد الدولمادية دا كسمايو قولها وزيرة جبلان أو قعانو علوسو ساري حلبانو للا حريرين يو جبهادا كدلعدي أوضل أو لحري قدوميها ورشيق أو داوعي حلبان سيدا بستولاد لوريدو بريي خيرا أو قدومية شير أمني قلوغاها اللي أو بوتلان يو جبلان أي كمقنايانا جبلان oo shaacisa in dawladda Soomaaliya ay weerar ku tahay Kismaayo iyo ugu dambeyntii ciidamo booliis ah oo loo diyaariyay xeebaha Soomaaliya daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door corona inta aan guda gelin iyagoo faahfaahsan waxa xusid mudan oo isla markaana aan idin xasuusinaynaa in aad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe saartaan sidoo kale gambaleelka aad furataan si aad uga mid noqoto daawada dhageystayaasha ugu horeeya ama daawadayaasha koobaad ee ay soo gaaraan ama u soo dhacaan wararkeena haatana waxaad u diyaar garoobaysaan qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan ganacsade Abuukar Cumar Cadaan ayaa sheegay in dadka Muqdisho ay mudan yihiin in laga xiro jidadka isla markaasna ay rafaadaan isagoo taas sabab uga dhigay in ay iyaga yihiin balaayo waxaas keensaday ganacsadaha ayaa sheegay in Muqdisho lagu dhacay hanti badan oo dad shacab ah ay lahaayeen dhig badanna lagu daadiyay midaasna aan weli laga toobad keenin waxna la iska weydiinin wuxuu sheegay in fidnada Soomaaliya ay soo bilaabatay sanadkii 1960kii ilaa haddana xal loo laayahay wuxuu tusaale u soo qaatay in dadkii ridaysiyaad bare ay awoodi waayeen in ay dalka xal u keenaan ayna Muqdisho u kala jaraan laba qayb ganacsade Abuukar ayaa sheegay in haddii la rabo in laga baxo dhibaatada dadka Muqdisho haysato loo laabto alle isla markaasna la iska dhaafo dastuurka la isku xukumayo oo ku tilmaamay inuu yahay arin gaalada u gaar ah Abuukar ayaa sheegay in madaxweynayaashii dalka soo maray oo uu ugu dambeeyo madaxweyne Farmaajo oo midka ka dambeeyo wax ka sheego isagoona sheegay inaysan waxba isdhaamin wuxuuna tusaale u soo qaatay Farmaajo uu sheegay inuu horay u ballan qaaday inuusan xiri doonin jidadka markii dambana laga waayay wuxuu sheegay in markuu Farmaajo tago uu imaan doono mid isaga ka daran dadkana ay dhihi doonaan Farmaajo ayaa fiicnaa ugu dambeyntii wuxuu xusay inaysan Soomaaliya dawlad shaqeyso ka dhalan doonin inta uu dalka leeyahay 6 madaxweyne sida uu hadalka u dhigay wasiir Omar ayaa sabab la yaab leh ku sheegay xayiraadii duulimaadyada ee Kismaayo ay ku rogeen taasoo ay ku xireen wasiirka amniga Jubbaland oo isna sharcigaasi ama amarkaasi uu saameeyay Maxamed Salaad Omar oo ah wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si cad uga hadlay sababihii keenay in xayiraad la saaro duulimaadyadii sida tooska u tagi jiray magaalada Kismaayo Omar ayaa sheegay in dawladda go'aankaas qaadatay kadib markii uu sheegay inuusan maamul ka jirin Jubbaland ayna u cabsadeen xuduudaha Soomaaliya Omar ayaa xusay iyagoo gudanaya waajibaadka ka saaran xuduudaha in ay amreen in diyaaradaha ay soo maraan Muqdisho kadibna ay u sii gudbaan magaalada Kismaayo wasiirka ayaa sheegay inaysan jirin xanibaad la saaray Kismaayo balse go'aanka xukuumadda uu yahay mid lagu ilaalinayo danta guud ee Soomaaliya mar su'aal laga weydiiyay sababta aysan xayiraad u saarin magaalooyinka kale ee Soomaaliya oo kaliya ay u bartilmaameedsadeen Kismaayo ayuu sheegay in meelaha kale ay ka jiraan maamul ay dawladda aqoonsan tahay uuna ka shaqeeyo xafiiska immigrationka Soomaaliya sidoo kale mar wax laga weydiiyay in ujeedka laga leeyahay xayiraadan uu yahay mid siyaasadeysan oo la doonayo in lagu xiro siyaasiyiinta Jubbaland ayuu sheegay in ay arintaas tahay been abuur ayna jirin cid ay dawladda doonayso inay xirto marka laga reebo dad uu sheegay inay booliiska raadinayeen oo dambiyo ay galeen hadalka Omar ayaa imaanaya ayada oo maamulka Jubbaland uu maanta soo saaray warbixin qoraal ah oo ku aadan xaaladda amni siyaasadeed iyo bini'aadamnimo ee ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland dawladda Soomaaliya ayaa garoonka Muqdisho ku xirtay wasiirkii amniga ee maamulka Jubbaland kadib markii diyaaradii uu saarnaa ay soo martay
magaalada Muqdisho kadib amarkii ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Maamulka Jubbaland ayaa horey u sheegay in xayiraadda la saaray ay tahay mid sharci darro ah oo aanan waafaqsaneyn dastuurka dowladda Soomaaliya iyo midka maamul goboleedka Jubbaland. Golaha Wasiirada Jubbaland ayaa go'aano culus soo saaray. Golaha Wasiirada Jubbaland ayaa maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay gudaha magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, iyadoona inta badan diiradda lagu saaray xaaladda cakiran ee maamulkaasi. Ugu horeyn, kulanka ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday dadaalada lagu dhameynayo khilaafka ka dhashay doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada Kismaayo, taas oo ay hormuud ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland. Sidoo kale waxaa kulanka looga hadlay arrimaha nabadgelyada, waxaana la isku raacay laga bilaabo 20-ka bishan Sebtembar in shirar rukhsad la'aan ah aan lagu qaban karin gudaha magaalo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waxaa kale oo ciidamada amniga la faray inay muujiyaan feejignaan iyo taxadar dheeri ah si ay uga hortagaan suurtagalnimada falal amni darro ah oo ka dhaca halkaasi. Ugu dambeyn, shirka Golaha Wasiirada ee Jubbaland ayaa looga arinsaday xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan gobolka Gado iyo guud ahaan Jubbooyinka, iyadoona hay-adaha ku shaqada leh la faray in ay warbixino ka keenaan xaaladaha nololeed ee ka jira gobolkaasi. Xildhibaano lala xiriirinayo jabhadda ka dilaacday Awdal ayaa la xiray. Warar hadda naga soo gaaray magaalada Boorama ee gobolka Awdal ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay 3 xildhibaan oo ka tirsanaa golaha deegaanka degmada Boorama. Ciidamada booliiska ee magaalada Boorama ayaa goordhabeed xabsiga dhigay 3 xildhibaan xilli ay ku sugnaayeen hoteelka Rays oo ka mid ah hoteelada ugu waaweyn magaalada Boorama. Sida ay Daynila TV ogaatay, xildhibaanadan ayaa waxaa si qasab ah lagaga xiray hoteelkii ay ku sugnaayeen, iyadoona waaran qabasho loo sidan, isla markaana ah xildhibaano xasaanad buuxda uu siiyey dastuurka Somaliland. Xildhibaanada oo goordhabeed xabsiga dhexe ee magaalada Boorama loo taxaabay ayaa waxa ay kala yihiin gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada xildhibaan Maxamed Maxamuud Faarax Dheereyste, xildhibaan Mustafa Xasan Labaqaydle iyo xildhibaan Mustafa Indhashood. Xildhibaanadan ayaa waxaa loo xiray arrimo la xiriira jabhad dhowaan ka dilaacday deegaanada Dila, iyadoona halkaasi ka wada dad urursi isla markaana lagu tababaro deegaanadaasi oo ah bariga gobolka Awdal, sida ay Daynila TV u xaqiijiyeen, gaar ahaan dadka ka midka ah eelada xildhibaanada la xiray. Daynila TV ayaa isku dayday inay wax ka weydiiso xariga xildhibaanada. Taliska ciidamada Somaliland iyo kan gobolka ayaysan u suurtagelin kadib markii ay ka jawaabi waayeen taleefanadooda gacanta. Dhinaca kale, Daynila TV ayaa 2 maalin ka hor baahisay xogta jabhadaasi ka abuurmatay deegaanadaasi hoos yimaada gobolka Awdal iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wadaan, kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyay waday dardargelin iyo u diyaargarowga dagaal ka dhan ahaa xukuumadda Muuse Biixi Cabdi. Sida ay Daynila TV xogta ku heleysay, jabhadaasi ayaa waxa ay daba socotay jabhad kale oo horey ugu jirtay gobolka Awdal, taasi oo uu hogaamin jiray Suldaan Wabar, midaasi oo iyaduna dib u soo rogaal celisay sida ay noo xaqiijiyeen dad lagu kalsoon yahay. Gudoomiyaha Warshiiq ayaa dhaawacay xildhibaan isla markaasina uu barayay bistoolada. Gudoomiyaha golaha deegaanka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhaawacay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka oo barayay sida loo rido bistoolada. Xasan Xaaji Axmed Darafey oo ah gudoomiyaha Warshiiq ayaa la sheegayaa in xabad kaga fakatay xildhibaan Makaraan oo ka mid ah golaha deegaanka intii la tusayay sida loo rido bistoolada. Xildhibaan Makaraan ayaa waxaa dhaawiciisa loola cararay isbitaalka Sanay ee magaalada Muqdisho, waxaana la xaqiijiyay inaanan si ku talagal ah xabadda loogu dhufan. Waxaa soo baxayo warar aan la xaqiijin oo sheegayo inay labada mas'uul isku qabsadeen lacago baad ah oo laga qaado isbaaro, balse mas'uuliyiin ka tirsan maamulka
ayaa sheegaya inaysan arrintaasi sidaasi ahayn. xaaladda caafimaad ee xildhibaanka ayaa la sheegay in ay tahay mid halis ah, wuxuuna ku jiraa qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka Kaysaney. degmada Warshiiq ayaa waxaa loo dhisay golo deegaan, waxaana guddoomiye loo doortay bishii lasoo dhaafay ee Agoosto guddoomiyaha degmadaasi. Khayre ayaa guddoomiyey shir amniga ku saabsanaa oo ay ka wada maqnaayeen Puntland iyo Jubbaland. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa guddoomiyey shir ay ka soo qayb galeen safiirada wadamada amniga ka taageera Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka, loogana hadlay amniga iyo xoreynta deegaanada ay Al-shabaab uga sugan yihiin Soomaaliya. shirka ayaa intiisa badan looga dooday dardargelinta howlgallada lagu baacsanayo xarakada Al-shabaab sida qoraalka lagu yiri, iyo in kaalmada amni ee dowladaha aan saaxiibada nahay loo qaabeeyo hannaan la jaan qaadaya qorshaha dowladda iyo rabitaanka ummadda Soomaaliyeed si guul looga gaaro dadaalada xoreynta iyo adkeynta amniga, sida warka ka soo baxay shirkaasi amniga. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle oo shirka hadallo ka jeediya ayaa sheegay in xoreynta gobolada Shabeellooyinka ay muhiim u yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo sugidda amniga labadaasi maamul. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dib u habeyn xooggan lagu sameeyay ciidanka labadii sano ee la soo dhaafay, lana ogyahay tirada iyo tayadooda, dalkuna uu leeyahay rajo wanaagsan oo dhanka amniga iyo xoreynta ah, ayuu yiri. wuxuu ra'iisul wasaaruhu wakiilada beesha caalamka u cadeeyay in shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu baahi qabaan taageerada amni oo wax ku ool ah. shirka ayaa waxaa ka maqnaa madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo aan xiriir fiican la lahayn dowladda dhexe. dowladda Soomaaliya oo dadaal xooggan ugu jirta sidii mas'uuliyadda amniga ay ula wareegi lahaayeen ciidamada militariga Soomaaliya ayaa labadii sano ee la soo dhaafay waxa ay dib u haweyn ballaaran ku sameysay ciidamada Soomaaliya, arrintaas oo fududeysay in deegaano badan laga xoreeyo xarakada Al-shabaab, dibna ay ugu bilaabato howlgallo kala duwan. inkastoo weeraro ay kala kulmayaan deegaanadaasi cusub ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Al-shabaab ayaa gudaha Soomaaliya gobollo badan ka maamusha, iyadoona inta badan ay ka taliso gobolada koonfurta Soomaaliya. Jubbaland ayaa shaacisay in dowladda Soomaaliya ay weerar ku tahay Kismaayo. maamulka uu hogaamiyaha ka yahay Axmed Madoobe ee Jubbaland ayaa ku dhawaaqay in ay dowladda federaalka Soomaaliya duulaan ku soo tahay magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaar ku ah maamulkaasi. war-saxaafadeed ka koobnaa dhowr qodob oo ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa looga hadlay arrimaha siyaasadda, amniga iyo bini'aadamnimada. ugu horreyn, war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in maalmihii dambe ay Al-shabaab falal amni daro ah ka geysteen deegaanada Jubbaland, isla markaasna 3 qof lagu dilay degmada Beled Xaabo, halka nabadoon lagu dhaawacay Kismaayo. sidoo kale war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in doorashadii ka dhacday Kismaayo loo maray sida uu qabo dastuurka Jubbaland, ayna ahayd doorasho xor iyo xalaal ah sida hadalka loo dhigay. ugu dambeyntii, maamulka Jubbaland ayaa soo saaray ilaa 3 qodob oo ay sheegtay in ay ogeysiinayso beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed. 1. in dowladda federaalka Soomaaliya ay abaabulayso duulaan iyo xasarad amni daro ah oo ku wajahan caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland ee Kismaayo. waxaan ku wargelinaynaa beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed wixii dagaalkaasi ka dhasha ee khasaaro ah inay mas'uuliyaddeeda qaadayaan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. 2. waxaan hay-adaha gargaarka ugu baaqaynaa inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadka tabaaleysan ee Jubbaland. ugu dambeyntii, qodobka 3, waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa in xayiraadda iyo cunaqabataynta sharci darrada ah laga qaado shacabka Jubbaland, ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday Jubbaland. ugu dambeyntiina, ciidamo booliis ah ayaa loo diyaariyey xeebaha Soomaaliya. aqoon isweydaarsi looga hadlayay sidii loo heli lahaa ciidan booliis ah oo awood u leh ilaalinta xeebaha Soomaaliya, kana hortaga tahriibka, isu socodka kooxaha iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalk Soomaaliya waxaana ka qayb galay saraakiil ka socotay ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta ilaalinta xeebaha Soomaaliya maamul goboleedyada wakiilo ka socday dowladda Soomaaliya kana taageera booliiska UNISOM UN Police iyo AMISOM isudubaha xafiiska ciidanka ilaalinta xeebaha ee wasaaradda amniga Muntaziya Xaaji Jimcaale ayaa sheegtay in ay muhiimad gaar ah leedahay ilaalinta xeebaha Soomaaliya ciidanka la unkayna uu wax weyn ka tari doono ka hortagga dambiyada ka dhaca badaha Soomaaliya taliyaha laanta ilaalada xeebaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Isaaq ayaa sheegay in baahi weyn loo qabay aasaaska ciidan booliis oo awood u leh difaaca iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya wuxuuna intaa raaciyay in halistii xagga bariga ay ku biirtay dhibaato kale oo ka jirta dhanka badda taas oo u baahan in wax laga qabto ayuu yiri sidoo kale waxa isna warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse waxa uu sheegay in la joogo waqti la soo dhameystiri lahaa xuduudda ciidan xoog leh oo wax ka qaban kara ammaanka xeebaha Soomaaliya waa hagaag daawadayaal guud ahaan waxaan halkan ku soo gabagabaynaynaa warkii aad kala socoteen channelkeena Daynile TV inta aan warkan warkiisa ku kulmi doono anagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo